بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحمانتا halkaan soo istaagay inaan laba arrimood inaan ummadda Soomaaliyeed soo gudbiyo. Inta koowaad waxaan ka jawaabaynaa baaqi madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo uu baaqay in la isugu yimaado gobol wada tashi gobol nabadeed iyo gobol walaaltinimo oo looga wada hadlo arrimaha maamulka iyo arrimaha guud ahaan hadda waddanka ku jira. Arrintaas oo soo dhaweynaynaa annagu haddana Hirshabeellana waa aqbalnay waxaan diyaar u nahay waqti alla waqtiga madaxweynuhu xadido oo cayino soo qayb galno si dadnimo leh aan uga soo qayb galno. Fariinta madaxweynaha waxaa ku dhahneed Soomaalinimo dadkoo loo tiro iyo in la wada tashado. fikradahaas oo dhammaan waa fikrada aan soo dhaweynayno. arrinta labaad oo arrintaas la xiriirta oo aan rabo inaan ka hadlo waxa waaye xaaladda hadda ka taagan dowlad goboleedka Galmudug. waxaan rabaa inaan halkaan ka sheego hadalka madaxweyne Madoobena waa ku jirtay aad ayay u sahlan tahay in wax la dumiyo laakiin aad ayay u dhib badan tahay in wax la dhiso. waa ogsoontihiin dhammaantiin dhibaatada laga soo maray iyo dadaalka laga soo maray in maamulkaas la dhiso. waa la socotiin marxaladaha la soo maray waa la socotiin inay hor yaalliin weli caqabado loo baahan yahay in laga gudbo oo ay ka mid tahay wada hadalka iyo walaalaynta sunna wal jamaaca ayadoo meeshaas joogto in maamulkii hadda carqalad la geliyo oo gadaal laga soo bilaabo wax la aqbali kara maaha. sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan inta ay arrintaas khusayso in cagta loo dhigo la qaboojiyo xiisadda wada tashi la geliyo lagana hordhigo wax walba sidii maamulkaas loo badbaadi lahaa xukunkan u sii socon lahaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. horta waxaa u sababa inaan ka jawaabno dareenka madaxweyne Axmed Madoobe oo mataqaanaa shalay soo saaray oo ah dareen dadnimo dareen walaaltinimo inaan muujinana muxuu ahay in loo baahan yahay in arrintan wada tashi iyo walaaltinimo lagu galo sida asaguba uusan uga hadlin arrimaha gudaha iyo arrimaha qaybsiga uga hadlin dadnimo iyo Soomaalinimo iyo walaaltinimo. aniguna hadda maanta diyaar iyo halkaan uma taagni inaan hoos u sii galo sida arrintaas wax looga qabanayo. waxaa keliya oo aan muhiimadda aan saaraya in loo baahan yahay xiisadda in la dejiyo xaaladda in la qaboojiyo wada tashi lagu dayo cid alle ciddii arrintaas wax ka geli karta ha ahaato dowladda federaalka ha ahaato maamulada ha ahaato beesha caalamka iyo deeq-bixiyaasha ha ahaato shacabka Soomaaliyeed intaasay u tal in arrimaha yaal wax laga qabto. laakiin hadda waxaa muhiima in wax walba laga hordhigo maamulku inuusan carqalad gelin oo aan gadaal loo noqon. runtii magaalada Muqdisho waa caasimadii waddanka waa saldhigga muxuu ahay dowladda federaalka oo aan ka tirsanahay waa beeska ugu weyn oo deeq-bixiyaasha iyo beesha caalamka. waxaan halkaan u imid shalay iyo maantana aan ku mashquulsanaa insha allahu tacaala laba maalmood oo kalena aan kusii darsi doonaa inaan qadiyadda Hirshabeelle ka haridda aan ka harnay maamulada dhibaatooyinka la hor yaalla saakulaynta aan u baahannahay jidadka in la furo arrimaha amniga inaan u soo bandhigno dhammaan muxuu ahay inta arrintaas aan isleenahay waxbay nagala qaban karaan si aad u wanaagsan oo muxuu ahay fiican ayayna arrintaas noogu bilaabatay. waxaan rajaynaynaa in muxuu ahay waqti dhow prime ministerka uu imaan doono asagana sidoo kale meesha ay wax marayaan la socodsiin doonaa raalli ayaana ka nahay in alle intii aan la kulannay iyo wixii aan kala kulannay. arrinta xiisadda khaliijka runtii anigu inaan aad u sii dheeraado ma rabo horena waa uga hadlay laba shay bay u baahan tahay in wada tashi dowladda federaalka muxuu ahay maamulada ay la samayso maamuladuna ay uga dambeeyaan dowladda federaalka arrimaha dibadda sida dastuurku qabo. runtii waxaana deeqa oo nagu filan dowladnimada kala dambeynta dastuurka qabyo ha ahaado ciladaha ku jiraano dib mataqaa lagu sameeyo laakiin juhdi badan oo Soomaalidu markay dhinac walba ka fiirisay ay isla garatay inay saan taladeeda ay meeshaas dhigeen in la darajeeyo oo la qiimeeyo oo muxuu ahay ii sheegeen ilaa asagaana kala xadaayo haddii cid walba hoostay doonto dastuurka u fasiratana waa dhibaato. waxaan ku baaqayaa in muxuu ahay la xoojiyo hay'adaha la xiriira dastuurka sida maxkamadda dastuuriga in la dhammaystiro wixii dastuurka ku qabiyaa in wada hadalla laga furo wixii qodobada taagtaagan laakiin aasaasku inuu ahaado inaan dhisano ku wada dhaqanno xukun dastuuri ah.